الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسيgan waxaan jeclahay hal aayad oo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mid ah faa'iidooyinka laga faa'iideysanayo culimada qaar ay tilmaameen inaan la wadaago asxaabta insha Allah tacaala khayr Allah si aayadaas waxa weeye aayada suuratu naml ku timi suuraduna waxay ku magacaaban tahay quraanjada Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad ka mid ah suuradaas oo nebiyo iyo ummado lagaga sheekeynayo ayaa haddana magaceedu wuxuu noqday magaca quraanjada suuratu naml hal aayad baana kaga jirta falama ataw ala wadi namli قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هل قرانجو أيا أنتي استاكتي قرانجو دي كلا أردن ومدى دي بيلاها اللي ساوى حيلاها هاي قدتكي نقلا يي إذن كو استاغن عيدا مدى سليمان إياغو أن دريمهين ويوعدر داتي إياغو أن دريمهين بيتري معها كس يماغن إذن كو استاغيان إن الله يرى الدكتور سامي سلمان خير الله السيئ ayaa wuxuu ka soo saaray 10 qaanuun oo qawaaniinta la yiraahdo quraanjada qaanuunka koowaad muxuu yahay qaanuunka koowaad wuxuu yahay qaanuunka maslaxa caamma quraanjadaas yarta ah waxay ka fikirtay maslaxada caamka ah yaa ayuhamnab ummadeedii oo dhan bay u dhawaaqday sidaas ayaa marka la doonayaa quraanku mar walba wuxuu dareensiyaa in qofku maslaxada caamma iyo danta guud had iyo jeer uu muhiimad siiyo ihtimaam siiyo tiisa gaarka ahna ka horeysiyo qaanuunka labaad oo quraanjaduna tusayso waxa weeye buu yiri qaanuun athiqa bin-nafs kalsooni naftaada inaad ku qabto quraanjada yartahay nafteeda ma inkirin ma oran maxaa qaban kartaa adiga malaayiin iyo boqolaal malyan oo quraanjada meesha ordaya ma iyan xaqirin naftaada xaqirin wax badan baa qaban kartaa kelimadaada waxbay qaban kartaa hadalkaaga waxbuu qaban karaa waa inaad mowqif yeelato waa inaad yeelato qof aan naftiisa xaqirin wax qaban kara oo wax ku dari kara bulshada inaad noqoto weeye qaanuunka saddexaad wuxuu qaanuun mas'uuliyad yani mas'uuliyad inay yani ku tasarrufto oo ay u istaagto mas'uuliyad inay qaado xilkasnimo iyo mas'uuliyad qaad inay u baqdo ummadeedii oo ay u digto ayay sidaas ugu dhawaaqday qaanuunka afraad qaanuun mubaadara weeye qaanuun mubaadara qofku waa inuu yani hal abuur leeyahay oo wixii u muuqda iyo waxa uu arko fikirkiisa dadka maskaxdooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kala duwayay wixii maaragtay faa'iido ah inaad shayga u hormarko oo qofku ra'yigiisa uu la hormaro oo wixii uu maaragtay uu dareemayo dareenkiisa uu cabiro qaanuunka shanaad waxa qaanuun injaaz yani in qofku najaaxiisa iyo guushiisa waxay ku timaadaa inuu wax fuliyo hadalkeedii way fulisay fikirkii way fulisay dantii guud ee ay lahayd ummadda oo dhan ka faa'iideysan lahaydna way fulisay oo markaa najaax baa laga wada gaaray waxa kale oo qaanuunka lixaad uu yahay taqdiim al-hulul xal ina qadimto way ina wax iska naqdiso ina wax iska ceebayso ina wax iska sheegto wax ma tarayso waxa loo baahan ina xal keento mushkilada haday jirto mushkilo walba xal bay leedahay hada quraanjadan yartahay xal bay keentay sidaad kaga gabanaysan udkhulu masaakinakum godadkiina galabay si aad uga badbaadaan ciidamadan mihigaanka ah oo idinku yani tuman kara qaanuunka toddobaad waxa qaanuun istishraaf almustaqbal baadayla yani mustaqbalkii bay ka sheekeynaysaa maxaa dhici doona haddii aad sidan banaanka u hogataan oo idinaan godadkiina gelin laa yaxtimanakum waa laydin burburinaya waa quwad idinka xoog badan oo idinka tabar badan oo idin hor istaagi karin ayaa imanaysa idinku tuman marka qofku inuu mustaqbalka qofku inuu eego weeye ayaa laga faa'iideysanaya qaanuunka sideedaad ama cibrada sideedaad oo laga faa'iideysanayo darsiga sideedaad quraanjada laga faa'iideysanayo waxa weeye qaanuun yaqada baraarugsanaan qofku waxa la rabaa inuu baraarugsan yahay bulshadaada maxaa hareeraha ka dhacaya adduunka maxaa ka dhacaya maxaa iman kara waxa la rabaa qofku inuu baraarugsan yahay oo had iyo jeer bulshadiisa iyo dhibaatooyinka iman kara iyo waxyaalaha iman kara inuu maaragtay had iyo jeer ka baraarugsan yahay qaanuunka sagaalaad waxa weeye qaanuun ictidaar way u cudur daartay qofkuna waxa la rabaa had iyo jeer inuu cudur daar dadka walaalihiisa u sameeyo khaasatan dadka wanaagga lagu yaqaan iyo khayrka lagu yaqaan cudur daar inuu sameeyo marka waxay tiri wahum la yash'urun Suleymaan iyo askartiisu iyagoon dareemayn baa laga yaabaa inay idinku istaagaan marka way u cudur daartay kan ugu dambeeyana waa qaanuun ibtisaama had iyo jeer waa inaad la cadaynaysaa oo si fudud adduunku inuu hami weyn kula lahayn dadkana aad maaragtay u dhoola cadayso oo waji wanaagsan aad ku qaabiso
tobankaas uu ka soo saaray ninka sheekaahi aayaddaas keliya ee quraanjada ku saabsan quraanjadaynu ka faa'iidaysanaynaa mar kaleeto insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa aayadaha qur'aanka kariimka iyo waxyaalaha ka faa'iidaysanayo ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda hana waafajiyo sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin